wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Cali Koore ayaa xariga ka jaray dhaambiyada xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay deegaanka Yurub oo ka tirsan gobolka Togdheer. Isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Togdheer Cali Maxamuud Cajab, Injineer Faarax Xuseen Axmed, Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo Injineer Mukhtaar Xambaali oo ka hadlay xariga jarka dhaambiyoodkaas ayaa ka waramay qiimaha uu dhaambiyoodkan u leeyahay bulshada reer Soomaaliland. $104,000 oo kaliya mashruucan ku baxay dhaamam kale iyo baliye kale oo soo marnay hadda halka kan waxa kale oo ku jirta oo muhiim ah iyaduna inaan xuso waxa jirta environment kale ilaahdo in aan erosion dhulka ka samaysmin waxaan kale oo iyana aan dhulka aan qalmin baan iyada ku dheeda halkan kubinay inaan dhicin waxa kale oo ku jirta baliyada caynkan oo kala marka la dhiso waxay keenaan qashin iyo uskag waxa idinka muuqda halkan ilaa iyo meesha aan dooranay ilaa laamigii tagayso wax qashin ah iyo nadaafad darro ah oo keenaya ma jirto marka aad buu baasiin u balaayn ku talagal in lagu talagalo halkan ay tahay center gobolada bari magaalada ay tahay magaalo runtii qadiimiya oo dhinac walba laga xigo waxaan rajaynayaa insha Allah in inta iyo in ka badan loo qabto inaanu maartay halka biyo loo keeno biyihii alxamdulillah waynu ku guuleysanay aad baanu ugu mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay mashruucan UNDP baa bixisay injineerka guud baa sheegay ee biyaha UNDP baa lacagta kharashka bixisay wasaaraduna way hirgelisay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Cali Koore iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ugu baaqay inay ka faa'iideystaan dhaambiyoodkani laga qabtay runtii waxa aan ku amaanayaa shaqada marka koobaad wasaaradda horumarinta biyaha oo kormeer badan oo aan soo sameeyay oo degmooyinka gobolka aan ku soo sameeyay runtii wasaaradda maaragtay waajibaadkeedii shaqo sidii loo baahnaa u qabsatay goobtan ay ka muuqato horumar ballaaran oo ay ku tallaabsatay ummadda reer Soomaaliland farxad bay kulli u wada tahay qof kasta Soomaaliland nara oo indhihiisa ku arka caawa sida loo maamulay dhaamkan qiimaha uu ku kacay mashruucani waa qiimo aad u yar marka loo eego effortiska iyo qalabka iyo aqliga iyo aqoonta gashay waxaan isleeyahay waa tallaabo ay hore u qaadeen dadka aqoonta leh injineerada wasaaradda iyo dadka reer burco oo kala shaqeeyay Khaliil Barawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.